السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنسلام يا ميل والبا وديك داونيسان يسي والبا ومركا عادي مغليسان با مقال كان مانتيتو waxaan doonayaa inaan aynu bal ku dul istaagno qodobadii ugu muhiimsanaa qodobad ka soo yeertay Xasan Sheekh Maxamuud maruu ka hadlayay shirka ururka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika qodobad uu halka ka jeediyay runtii noqotay qodobad umada oo dhan ay si adag marka ay uga falceliyaan waxyaalo la yaab lahaana marka ay ku jiraan ayaan falanqayn doonaa qodobadaasi guud markii aad fiiriso message-keedii laba fariimood oo kala duwan ayuu diray Xasan Sheekh Maxamuud mid wuxuu u diray Itoobiya mid wuxuu u diray shacabka Soomaaliya mid shacabka Itoobiya u diray waxa la oran karayaa shacabka Soomaaliya wuxuu u soo diray fariin runtii ay aad uga niyad jabaan buuq badanna ka dhalisay baraha bulshada dhanka kale tona wuxuu shacabka Itoobiya u soo diray fariin marka ay ku seexdaan oo aad moodid inuu marka qoora salaaxayo bal qodobadaas ayaynu marka falanqayn doonaa soo dhawaada meel walba joogtaan iyo si walba oo marka aad maqlaysaanba qodobka ugu horeeya uguna muhiimsan oo hadalka ku jiray qodobada ah ayaa wuxuu ahaa wuxuu yiri Itoobiya iskuma hayno inay badeena soo gaartay in kale iskuma hayno waxaan isku haynaa si Itoobiya ay u gaari lahayd badeena ayaynu isku haynaa mana jiro dagaal naga dhaxeeya annaga Itoobiya oo badda ah ayuu yiri kaliya waxa meesha yaala sidee Itoobiya badda ku gaaraysaa da process kaas ugu isku diidana laakiin Itoobiya inay badda gaartay waarna dagaalna ma jiro ayuu saacad yiri bas bariyahan dambe wadankan dariska anay Itoobiya aad ka maqlayseen arrimo ku saabsan badda iskuma haysan annaga Itoobiya inay badda gaarto iskuma haysan dagaal naga dhaxeeya annaga Itoobiya oo Soomaaliya Itoobiya ay bad u diidan tahay ma aha waxaan isku haysanaa waxay tahay Itoobiya sidee badda ku soo gaaray hadalkaas marka uu Xasan Sheekh Maxamuud maanta ka sheegay fagaaraha caalamiga ah wuxuu meesha ka saarayaa khiyaaligii iyo beentii ummadda uu ku seexinayay isla asaga Xasan Sheekh Maxamuud oo uu masaajid ka soo dirayay ayuu beenaynaya hadalkiisu beenaynaya maanta markaysa wuxuu Xasan masaajidka ka yiri isbahaysiga maalin jimca ah Itoobiya waa cadawga koowaad maxaa lahayn buu yiri al-shabaab cadawga labaad Itoobiya noqday buu yiri dhulkeena inay maanta nagu soo hunguriyeysana ma ahayn ayadaa ahayd buu yiri inaan dhulkii ay hore nooga qaadatay markaasi aynu ka raadsano waxaan u sheegayaa cid walba sheekh iyo shariif cid walba inay diyaar garoobaan oo dalkooda difaacaan masaajidku halka ka jira haddii maanta dhul la isku sheeganayo annagay tahay inaan ku sheegano Itoobiya annagay tahay Itoobiya inaan dhul ku sheeganay ayadu inaan dhul nagu sheegata ma aha naguma sheegan karto intaan ka sheegnay cadow waa hal waa shabaab maanta waa labo waa awoodnaa shacab iyo ummad jirtaan nahay shabaabkana waa iska celinaynaa duulimaadka dibadda ka yimaada waa iska celinaynaa intaba waa isaga filannahay ninkii qaba inaanu isaga filnayn ka kacan lena hurdada waa hurdo haysaa waa isaga filannahay waana isaga filnaanayna marra badan ba waxaan iri ninkaan waxa lagu laabtay diintiisa xataa iswaafaji adag marka hadalkii masaajidka laga sheegay Itoobiya waa cadow Itoobiya walaalahan say bad u gaarleed iskuma hayno Itoobiya ayada ayaba ahayd inaan dhulkii naga qaatay ku qabsano isku aadi qodobka waxa lagu xila sheegay badan difaacina dalban difaacina oo dhan caawa qashin baa lagu soo qodobka labaad oo qodobada ku jiray wuxuu yiri waxaan Soomaaliya caalamka u sheegayaa haddii Itoobiya ay doonayso ama ay rabto inay badda soo gaarto Soomaaliya waa soo dhaweynayna wuxuu intaa ku daray inay u soo gaarto sida ay badda Kenya u soo gaartay Uganda sida ay Suudaan u soo gaartay midda Kenya sida Itoobiya naftirkeeda ay u gaartay badda Djibouti isla sida uma doonayna hadalkaasu waxaan isleeyahay waa hadal aan nuxur lahayn wax miisaan ah oo kor loo qaadi karana aan lahayn anugu sidii jirka ee Soomaaliga xataa lagu seexin karayo sababtuna waxay tahay Uganda iyo meesha loo yaqaano iyo Kenya dagaal badeed kama dhaxeeyo dagaal suuxdin oo ka Itoobiya naga dhaxeeyana kala ma dhaxeeyo
South Sudan iyo Kenya waxaana Ethiopia naga dhaxeeyay dhulka aynu kala haysano taariikhdeena ma dhaxmarin Djibouti anaga naga goodo waa dal cusub laakiin inta ay dawladnimada noqotay aygi iyo Ethiopia waxa ma dhaxmarinin marka kiiska Soomaaliya kiiska Ethiopia waxa ka dhaxeeya kiisaskaas kaleeto irrelevant u noqonaya shughul isku mala waxa la barbar dhigi karaa oo kaliya haduu oran lahaa alla ilaahay isku dhow yihiin Ethiopia orda casmaraha ka soo qaadata bad waxa uu ogolaatay Eritrea kuwa ba kala go'ayo dagaalkana dhaxmaray oo kala dhaxmaray orda u doonto kuwa sida ay Ethiopia iyo meesha loo yaqaan Eritrea aysan ganacsiga u wadaagi karin oo kaleeto oo dagaal taariikhi ah oo xuduudeed uga dhaxeeyo ayaa naga Ethiopia nooga dhaxeeya dalkaas la oran karaya hadii ay ayagu siiyaan nagana oo ogolaan karna ganacsi kaas la oran karaya waa loo barbar dhigi kara laakiin dalkan oo kale dagaal ka dhaxeeyo iyo dagaal is haysta ma iyo dal dooni isbabaan ma waxa kale la yaab leh Ethiopia ma afku Xasan kaga qodiyeenaya kala ma taqaana qaabka kuwa kale nolol jooga Ethiopia waxay public u tiri badan qaadanaan doonayna intaan ka dabadnaan ma ahaanayno xoog iyo xeelad baki aan ku qaadan karna ku qaadanaa caadi yiraahdo qofkan marka ana kala garanayno xanuunsan caafimaadka qaba ee sheeganaya ummadda madaxweynaha u yahay waxa uu ula hoos ordayo hadaad gaaraysaan waa idin ogolna maxay tahay ninku haye xoog baan ku qaadanaya inaad qoora salaaxaysa waa daciifnimo weyn waa maqaam aysan ummadayada Soomaaliyeed iyo badayada aysan geynin weyn dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u cadeeyo Ethiopia hadii ay doonayso xeebaha Soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhaweynayna waxaan rabnaa inay u soo gaarto sida Uganda ay xeebta Kenya u soo gaarto sida Burundi iyo Rwanda ay u gaaraan xeebta Tanzania sida South Sudan ay xeebta Kenya u gaarto sida Ethiopia lafteeda ay xeebta Djibouti u gaarto oo xeebta Kenya u soo gaarto oo kale inay Soomaaliya u soo gaartaan laakiin waxaan isleeyahay inuu ka hoggaan noo noqdo ama uu sheegtay inuu hoggaan noo yahay runtii waa istaahilaa qodobka saddexaad oo ninkan uu ka hadlay wuxuu yiri waxaan diidanahay uu yiri in la jahwareeriyo shacabka Ethiopia asaga diidda shacabka Ethiopia in la jahwareeriyo harabnaa wiiran shacabka Ethiopia uu sheego inaan walaalanahay isla markaasna aan u diidanayn in hadday bada soo gaariyaan aan soo gaaraan wax dagaalna uusan jirnin ayaa shacabka u sheegaynaa waa walaalaheed ma rabno in la jahwareeriyo warkaas waxaan filayaa aad inuu cad yahay waxaan rabaa inaan la jahwareerinin ra'yiga caalamka inaan la jahwareerinin ra'yiga Soomaaliga iyo inaan la jahwareerinin ra'yiga ummadda Ethiopia ee dariska nahay shacabka Ethiopia iyo shacabka Soomaaliyeed darisaan nahay ismaanaan dooran shalayna waan ahayn maantaana berino aan ahaan doonaa laakiin inay jahwareeraan oo si aan jirin wax loogu sheego waan diidanahay waxaan gaarsiinaynaa fariintaas laakiin kuwii kale Soomaaliyeed ee uu sheeganayay inay madaxweynuhu u yahay ayuu jahwareerinaya su'aashii aan asbuucii hore idin weydiiyay ayaa weli taagan marka weli kan ayuu matalaa iyo waa foreign agent ee ninkan Soomaali matal intii uu haddana mar labaad isku cadaynaya waxyaabo kale oo la yaab ka lahaa oo qodobada ku jiray dadku ay sida xoog galeen marka ay uga gilgisheen ayaa waxa ka mid ahaa wuxuu xaqiray halgankii dheeraa ee la soo galay badii Soomaaliya oo marka ay Kenya damcadeen hore u boobto wuxuu yiri wax dagaal ah oo dhacay ma jiro tusaale biis ah oo fudud oo macaan ah aan u soo qaato wuxuu yiri Kenya ayaan dhawto halka ay daliiginta xariiqintu ay marayso xoga yaro muran marka si reer magaalnimo oo xadaariyada baano aan isqabsan tartiib aan u tagnay maxkamadda tartiibna waa kala baxramaantay tara walaalana وهذا وقف يمال كودع كوي هي دولة ديك أشرب تأسير كهرسي هو جامعها وها مدحونه شعب كويس على محمد عبد الله فرماتشو يدتك كلا دوراء الصوماليات يقويها مدى يلا يرهضها يشعب الصوماليات المدة بدن قربها يربحين تقتلنا
in badooda ay dib u helaan oo aan muran la gelinin effortkii iyo xooggii iyo dhaqaalihii iyo dhiiggii wiilashii Soomaaliyeed ee ku dhintay xuduudda Soomaaliya iyo Kenya markii ay caloosho u shaqaystayaashii Kenyan ay soo direen ay marar kala duwan duulaan ku soo qaadeen degmada madaxda gobolka Gedo waxa soo dhan ayuu ninkaasi caaw ku shubay biyo wuxuu ka soo qaaday isagoo waxba dhicin wixii qof oo dhintay waxba dhimanin duulaankii Kenya ay soo qaaday lagu soo duulin buu yiri dhaqaale xoog badnaay ummadda iyo dalka ka baxay waxba dhicin buu yiri halgan ay Soomaaliya gashay oo dhowr iyo 10 sano socday ayuu ka soo qaaday xiriir waxba ahayn markii aan dariskeena isfahm weynay مثلا annaga iyo Kenya ayaa bari xuduudda badda meesha ay marayso Kenya bad Soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duulaynin laakiin xuduudii maadaama aan hore loo calaameen badda meesha ay marayso waataan isku qabanay waa ka wada hadalnay markaas afgara weynana maxkamadda caalamkan tagnay sida ilbaxnimo ah ayaanu noo kala xukumay dib dambana kama dhicin maantana Soomaaliya iyo Kenya laba wadan oo saaxiiba ma dhahaye waa laba wadan oo walaalo ah ayaan dhahayaa عارف مركنا بردب دين حسوسية مالكي بدأ الصومالية أي لا حكومي وليه واحد نلاقي قصة غرب نلاقي قصة وICJ إنه حكومتي هذا الكي وشيدي بحوليه هراء الصومالية محمد عبد الله فرماشو لابد ميلاد وكلية كفيرة يأخذ بدأ سوي دارت قيبتها كفيرة بحولي بحوليه هراء الصومالية بحول شيء هل كي يدي بعتبي صدق كان يلا صومالي ninkii markaa xilliga madaxweynaha ahaa badal xukuminayay dagaalka uu tirada badan u galay level walbana Kenya la gaaray dagaal walba ilaa safiiriin la kala qaatay meel walba isla gaaray ayaan bal iyada ka sii deynaya bal inoo sheego wixii xilliga Kenya ay Soomaaliya isku hayeen bilan dib u xasuusano Soomaaliya waxa ma xasuustay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u mahadnaqayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo maanta na gaarsiiyay guushan taariikhiga ah iyo mira dhalka halgankii dheeraa ee dadka iyo dawladda Soomaaliyeed ay u galeen xaqiijinta kiiskii sharciga ee lagaga hortagay damaca hoggaanka Kenya ay ku doonayeen inay ku sheegtaan qayb ka mid ah badda Soomaaliyeed wuxuu ahaa halgan cadaaladeed oo ku astaysan aragti fog aqoon durugsan dhiiranaan wadaniyad ilaalinta ammaanada ummadda iyo difaaca dalka iyo dadka waxa guuleystay xaqa waxa guuleystay sareynta sharciga guushan waxa leh shacabka Soomaaliyeed oo mar walbaba garab iyo gaashaan u ahaa madaxdooda iyo dawladda ay doorteen mar walba oo ay shacabku ku midoobaan wadaniyadda una midoobaan difaaca dhulkooda waa kan maanta oo kala ah oo aan ku joogno guul noo soo wada hoyatay waxaan kaloo idin xasuusinayaa xasan maantito halgankii ay dawladdaasi gashay waxa kama jiraan buu ka soo qaaday laakiin farmaajo maalinkaasi qaybtii uu xasan sheekh maxamed ku lahaa in badda dacwada kiiska badda la geeyo si raganimo leh ayuu sheegay oo wuxuu yiri waan kaga mahadnaqaynaa doorkii shariifka lahaa ee madaxweynihii hore Soomaaliya walaalkay xasan sheekh maxamuud uu ku lahaa wuxuu muujiyay inuu dagaalkaas halgankaas uu qayb ka ahaa waxa xusid mudan doorkii sharafka lahaa ee uu qaatay madaxweynihii hore ee dalka walaalkay xasan sheekh maxamuud oo bilaabay geedi socodkii cadaaladeed ee lagu difaacay badda Soomaaliyeed ee ay sheegatay Kenya sidoo kale waxaan ammaanayaa ama aan ammaan u hayaa iyo bogaadin iyo sharafba mudan qareenadii iyo khubradii Soomaaliyeed ee u istaagay difaaca baddeena oo ay ugu horeeyaan abukaat Muna Sharmaan iyo Allah u naxariistee injineer Maxamed Umar Saalixi oo aad iyo aad ugu haminayay ama hamigiisu ahaa inuu goobjoog ka ahaado ama u ahaado miraha dadaalkii uu galiyay kiiskan waxaan idin xaqiijinayaa in shakhsiyaadkan aan xusnay ay baal dahaba ka galeen taariikhda dalkeena xasanna maantaytu wuxuu biyo ku shubayaa uu leeyahay halgan ma jirinba markii aan
dariskeenna isfaham weyne matalan annaga iyo Kenya ayaa beri xuduudda badda meesha ay marayso Kenya bad Soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duulaynin laakiin xuduudii maadaama aan hore loo calaameen badda meesha ay marayso waataan isku qabanay waa ka wada hadalnay markaas afgara weynana maxkamadda caalamkan tagnay sida ilbaxnimo ah ayaanu noo kala xukumay dib dambana kama dhicin maantana Soomaaliya iyo Kenya laba wadan oo saaxiiba ma dhahaye waa laba wadan oo walaalo ah ayaan dhahayaa markaysa waa farqiga u dhaxeeyo way intaasaan ku soo koobayaa intii dib isaga soo laabanayno waxaan ka tagay si nabadino. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.